waxa muddooyinka u dambeeyay khilaaf cakaran soo kala dhexgalay shaqaalaha guddida qandaraasyada Jamhuuriyadda Somaliland iyo gudoomiyaha guddida qandaraasyada Jamhuuriyadda Somaliland iyagoo muddooyinka u dambeeyayna musuqmaasuq aad u baahan hareeyay guddida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland guddida qandaraasyada Jamhuuriyadda Somaliland oo indhaha shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland ma jir habaabinay ayaa waxay shir jiraa'id maanta ku yeesheen xarunta guud ee guddida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee magaalada Hargeysa oo ku beeninaya wararka xaqiiqada ku saleysan ee waqti xaadirka guddida qandaraasyada dhexmaray haba yaraatee hadaladoodii ilaahay dhexmaray maayo ku dhamanayaan ilaahay inankiisa dhexmaray doonin baan rajaynaynaa taa macnaheedu waxa weeye gudoomiyaha oo guddiga Maxamed Xuseen wax awoodaha uu guddidan dheer yahay ma jirto aan ahayn marka aanu arrin eegayno ee aan eegayna qandaraaska kala saaristiisa isagu wuxuu la dheer yahay wixii aanu gudoomino wixii aanu isla qaadano ee aanu majority isku qaadano gudoomiyaha oo uu u sheegay dadweynaha iyo media inaan wax khilaafahi guddida dhexmarina waxa ka marxaati ah hal case ama hal qandaraas oo wali wax muran ka dhacay ma jirto guddida qandaraasyada qaranku markanu aragnay baaxadda ay leedahay iyo hawsha ay leedahay guddigu way fadhiisatay waxay go'aan ku gaareen in aanu siirin barayska aanu maanta bixinayno tartamayaasha aanu ka qaadano haddii cid la wato ama gudoomiyuhu wato ama guddidu wato waxa weeyaan dee taamaanu yeeleen 3 barays baanu samaynay 3 barays oo kala ah $16 intelligent lagu keeno 15 in kala labaad lagu keeno 15 bad in ka saddexaad lagu 3 barays baanu samaynay waxaanu weynidhi ka soo saara ninka uu aaminsantihiin idinku daada weyle haydii qaado tu qaadabaanayno ah mataqaanaa silin barayski wax lagu helay ninkii u weynaa oo ninka shiikha haysta niil hotelka tabliiqiinta ee shiikh Aydid la yiraahdo ay iska soo saareen uu baaray wuxuu soo qaaday 15 bad asagoo wuxuu ku soo qorto ku tirtabay 15 sentimo ku tirtabay hadduu taa qaadi lahaa siga helila wuxuu qaaday 15 bad 15 bad ku qaaday laba shirkadood baa isku soo hadhay labadii shirkadood waa la baaray guddidu markay baadhay si wada jira oo aan gudoomiye la gaar u ahayn nin kale la gaar u ahayn fadhi ku dirna gaar u ahayn misuq ka hadlana gaar u ahayn waxa weeyaan waxay soo saartay kii ay ilaahay ku ilaahay inuu cadaalad ahaan u helay oo shirkadda imika gacanta ku haysa ee aflax ayaa heshay markay heshana tii kale waxaan ku dhahay hadaad cabanayso diyaar bay ku tahay lagu kala kici maayo waxaad ku hadhay wixii mataqaanaa aad ku hadhay waxaan bari yeelaya inaanu qaraabi kil ka dhicin halkan inaan guddis khilaafsani ka dhicin inaan cid loo naas nuujiye ka dhicin waa daacad ilaahay baan ku soconaa dad isku xidhana waa nahay markaan meesha soo fadhiisanayno iyo marka kaleba waxaan ka wada baaraandega oo halka xeer ku cad yahay oo wada egtiin oo transparent ah ayaan ku shaqeynaa ujeedo guud oo xafiiska ku aasaasan baa runtii lagu shaqeynayaa oo in madana loo soo bandhigo ciddii ku guuleysatana la siiyo sida cid ugu guuleysata waxaan leeyahay in shacabina Jamhuuriyadda Somaliland xafiiska ka markay shaqada xafiiska daneeyaasha ay ku yihiin shirkadaha tartamaana sidoo kale uu ogyihiin xafiiska gudihiisa waxa yaala annagu dadka iyo dawladooda aanu dhaxayna wax noo gaara oo meel noo yaala ma jiraan sida hufan ay xubnaha guddidu sheegeen ayaan miiska u dhignaa qandaraaska lagu tartamayo waa transparency way iyaga marxanti nooga ah oo nala fadhiya marka hortooda lagu furaa mar labaad ku celinaya inaan waxba ka jirin waxyaalaha baraha bulshada lagu faafiyay Abdikariim Ciise Cabdullaahi Staji warbaahinta madaxa banaana VOS News magaalada Hargeysa.